bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad nagala socotaan iyo si walba oo aad noola socotaan halkani waa shabakada wararka ee Sol 24 oo aad uga barateen wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee mandaqada geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaa falanqaynta wararka arrimaha saameynta ku leh Soomaalida haddaba habeennimadan caawa qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah ciidankii ugu tiro badnaa ee ka amar qaata madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo heegan la geliyay iyo xiisad kacsanaan ah oo aad looga dareemayo caawa magaalada Boosaaso maamulka Puntland oo ganafka ku dhuftay qodobadii ka soo baxay isimada ee arrinta BSF shaaciyayna inay yihiin waxba kama jiraan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay golaha nabadda iyo amniga ee EU iyo ra'iisul wasaare Roble oo daafuray kulan ku saabsan geedi socodka xilliga kala guurka intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena ee u diyaar garooba qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan sida ay ku soo warramayaan ilo xogogaal ah oo aan kala xidhiidhnay magaalada ganacsiyeedka Boosaaso waxay noo xaqiijiyeen in laga qaxay aagga ay degan yihiin ciidamada BSF ee la isku horfadhiyay habeennimadan caawa sidoo kale waxaa la baneeyay haamihii kaydka shidaalka ee aaggaasi ka dhowaa oo ilaa shalay daabul lagu waday maamulka gobolka Bari ee hoostaga madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku amray cusbitaalada magaalada in la baneeyo dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka oo dhan ayaa iyana caawa heegan buuxa la geliyay sida xaalku noqon doono Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa oga laakiin saadaasha ayaa la filayaa in dagaal faraha la isaga gubto oo aan waxba la isku hamran uu ka bilowmo magaalada Boosaaso maalinimada berri ah haddii dagaalka Boosaaso sida la filayo uu ku bilowmo kuma koobnaanayo ciidamada ishor fadhiya ee BSF iyo ciidamada Puntland ee ka amar qaadanaya madaxweyne Deni waxaa jira xogo kale oo ka faa'iideysan doona oo gobolka ku sugan oo ay ka mid yihiin Daesh Shabaab iyo ISIS oo dhammaantood gobolka awood muuqato ku leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in uu kala qaboojiyo oo xaalkooda nabad ku soo dabaalo waqtigan uma dulqaadan karno dhiig Soomaaliyeed oo daata iyo dad shacab ah oo dushooda lagu dagaalamo dhinacyada gulufka abaabulaya oo maamulka madaxweyne Deni kow ka yahayna waxaan ugu baaqaynaa in ay dejiyaan xaalka oo danta shacabka fiiriyaan maamulka Puntland ayaa ganafka ku dhuftay qodobadii ka soo baxay isimada ee arrinta BSF xukuumadda Puntland ayaa si adag uga hortimid go'aankii ka soo baxay qaar ka mid ah isimada Puntland kaasoo ay ku go'aamiyeen qodobo xal nabdeed looga gaarayo arrinta xilka qaadista hoggaanka ciidanka BSF oo ay ka mid tahay in guryaha hubka iyo gaadiidka BSF uu leeyahay agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano xilkana uu wareejiyo war ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in guryaha hubka iyo gaadiidka BSF ay yihiin hanti dawladeed waxaana nasiib darro ay ku tilmaantay go'aanka isimadu ku siiyeen Maxamuud Cismaan Diyaano xukuumadda Puntland ayaa sheegtay in go'aanka isimada gaar ahaan qodobka hubka hantida iyo guryaha BSF oo la siiyo agaasimaha xilka laga qaaday uu meel ka dhac ku yahay sharafta dawladnimada isla markaana uu dhiirigelinayo musuqmaasuq iyo boob lagu sameeyo hantida dawladda Puntland waxay amar ku siisay agaasimaha xilka laga qaaday Maxamuud Cismaan Diyaano inuu sida ugu dhaqsaha badan u wareejiyo dhammaan hantida hay'adda BSF wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay golaha nabadda iyo amniga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika kulanka oo ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ee Zoom-ka ayaa looga hadlay qorshaha ay dowladda Soomaaliya kula wareegi lahayd amniga dalka iyo qorshaha bixitaanka ciidamada AMISOM iyo sidoo kale hanaankii ciidamada xoogga ay dalka
ay u hogaamin lahaayeen howlgallada ka dhanka ah argagixisada. Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa tilmaamay in dowladda federaalk Soomaaliya ay dadaal xoog la gelisay tababaridda iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka, isla markaana ay ka go'an tahay xaqiijinta amniga guud ee dalka. Kulankan ayaa daba socday kulamo Midowga Afrika iyo dowladda federaalk Soomaaliya ay ka yeelanayeen xaaladda kala guurka ciidanka oo qorshaheeda muddo soo socday. Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa daahfuray kulan ku saabsan geedi socodka xilliga kala guurka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Dowladda Federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa furay kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedi socodka dowladnimada xilliga kala guurka ahi. Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalaya ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed, waxaana diiradda lagu saarayaa sidii loo dardargelin lahaa howlaha geedi socodka doorashooyinka dalka xilliga doorashada. Qodobkaasi ayaana u dambeeyay xilli tabinteennii. Inta aynu warkan warkaxiga ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.